الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، walaalayaal waxaa inoo soo socday duruustii kala duwaneyd oo aynu ugu talagalnay inaynu qaadano bishan barakaysan ee Ramadaan, taasoo uu qofku ka faa'iidayo khayr badan. qof walbana uu doonayo in ay soonkiisu noqoto mid Allah subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalo. maanta waxaan rabaa inaynu ka hadalno walaalayaal, waa maxay fadliga ay leedahay soonka? fadliga ay leedahay soonku waa maxay? waxaan ka hadlaynaa ama aan iftiiminaynaa dhowr qodob insha allahu tacaala. soonku wuxuu leeyahay walaalayaal fadli aad iyo aad markaa waxa weeye u weyn. fadligaasi oo uu helayo qofkii waxa weeye sooma, waxaana ka mid a fadliga uu leeyahay soonka qofka sooma bisha Ramadaan asaga oo rumaysan ajarna waxa weeye xisaabsanaya, qofkaasi waa loo dembi dhaafayaa. dembigiisii hore ayaa loo dhaafayaa oo laga tirtirayaa, sida nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wassalaam. qofka sooman ducadiisa lama celiyo, taana nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wassalaam. waa mid la aqbalayo. waxyaalaha lagu aqbalo ducada bay ka mid tahay qofku markuu sooman yahay waa la baryo in ducadiisa la aqbalayo. soonka iyo qur-aanka aakhiro waxa weeye way shafeeco qaadayaan, qofka way shafeeco qaadayaan oo way u doodayaanba, naar ma is arkayaan. ilaahay baa qur-aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala. soonka waxa uu yahay caafimaad xagga jirka ah. caafimaad ahaan soonka waa caafimaad baa laga helayaa. oo baaritaan la sameeyey oo lagu ogaaday waxa la yidhaahdo at-tatabbucu wal-istiqraa. markii cilmi baarayaasha ay daba galeen ay ku ogaadeen qofka sooma inuu ka caafimaad badan yahay qofka aan soomin. soonka waxaa markaa lagu dhaafaa dembiyadii baa lagu dhaafayaa. dembigaad soo samaysay soonkii baa lagaga dhaafayaa. soonka qofka wuxuu siiyaa awood rabbaaniya buu siiyaa oo aanu lahayn qofka aan soomanayn ayuu leeyahay. soonka waxa weeye gaashaan uu qofku markaa kaga gaashaamanayo naarta, oo naar ma is arkayaan. as-sawmu junna, sida nabigeenu inoo caddeeyay calayhi salaatu wassalaam. soonkii waa gaashaan laysaga dhigayo naarta. soonka waxa weeye kafaara gud. waxaa lagugu dhaafayaa dhaaraha aad dhaaratay ama aad been ku dhaaratay ayaa lagugu dhaafayaa, sida nabigeenu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam. marka waxay leedahay soonka fadli aynaan soo koobi karayn. inta bishan socoto waxay noo soconayaa insha allah biidni illaahi alkariim fadaa'il kala duwan oo soonka laga helayo, iyo qofka mu'minka waxa looga baahan yahay, iyo waxa ajarkaagu aanu ku naaqusayn balse uu ku ziyaadayo. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir janaalka macallin qur'aan online. baaraka allahu fiik. siina sheergaray si ay walaalaha u gaadho. nabiguna noo sheegay qofkii khayrka faafiya wuxuu la mid yahay ajarka oo kale inuu helay ka faacilihi. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.